السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada idinku talagalnay waa barnaamijkeeni labaad maanta oo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha Agoosto sanadka 2026. haddaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn. magaalada Jidda ee boqortooyada Saudi Arabia waxaa maanta ka furmay shir socon doona 2 maalmood oo ay yeelanayaan wadamada Sacuudiga isbaahaysiga la ah ee dhanka badda si looga shaqeeyo in lala dagaalamo Xuuti si aanu u goynin wadada Bab al-Mandab. haddaba arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli Xuutiyiinta saacadihii la soo dhaafay dagaalo culus ay ka wadaan gudaha dalka Yemen iyagoo sidoo kale duqeynaya dekedaha iyo goobaha ku dhow Bab al-Mandab. haddaba xaaladda guud ee halkaas ka taagan iyo sida xaalku yahay iyo in ciidamada iyo shirkan hadda socda Soomaaliya iyo Djibouti ay ka qayb galeen iyo in kale wararkaas waa idin hayaa oo faahfaahsan. dhanka kalena waxaan idin soo gudbin doonaa Iran oo war ka soo saartay Hormuz iyadana qaabka loo marayo iyo inaan marnaba laga amar qaadanayn Mareykan wuxuu sheegayna ay been tahay. haddaba warbixinadaasi ayaynu barnaamijkeena labaad ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirno wixii akhbaaraad kale ay soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa. barnaamijkeena waxaynu gabi ahaantii ku soo qaadanaynaa xaaladaha labada marin ee muhiimka u ah caalamka gaar ahaan Bab al-Mandab iyo Hormuz oo warar waaweyn ay ka soo kordheen. haddaba waxaynu ku hormaraynaa maanta waa khamiis taariikhduna waa 13 marka shalay ayaa kulamo horudhaca bilowdeen ilaa maanta oo 13 ah ayay socdaan kulamada magaalada Jidda ayay ka dhacayaan. macnaha 12kii waa soo bilowdeen shirarka ilaa maanta oo 13 marka maanta si rasmi ah miiska looga wada hadlayaa. maxaa laga hadlayaa muxuu yahay kulanka isbahaysi dhawaan ay sameeyeen Sacuudiga oo dawlado badan ku soo biiray oo ay ku jireen Soomaaliya iyo Djibouti listigii la soo saaray ayaa hadda waxa leeyahay qaybtii ugu horeysay ciidamadoodu ay diyaar yihiin ayaa kulan maalinkii labaad u socdaa 12 ilaa 13 macnaha maalinkii labaad socda laakiin maanta ayaa si rasmi ah loo doodayaa. Turkigu wasaaraddiisa gaashaandhigga marka waxay sheegeen inay maanta ka qayb galeen kulanka marka ujeedadiisu Sacuudiga muxuu rabaa in lala diriro Xuuti laga fogeeyo Bab al-Mandab. sheekadu marka halkaas ay maraysaa. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ee barnaamijkan sheekadan laga qoray. Turkigu waxay sheegeen inay ka qayb galeen shirka Jidda kaasoo ah isbahaysi dhanka badda oo difaac ah oo ay dalal kala duwan ka qayb qaadanayaan. haddaba marka warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga war rasmi ah oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in Ankara ay ka qayb gashay kulankaasi kaasoo marka lagu martigeliyay magaalada Jidda ee Saudi Arabia waana isbahaysi dhanka badda oo difaaca oo dalal kala duwan kaasoo marka la sheegay inuu ka shaqeyn doono xorriyad inay ku maraan maraakiibta Bab al-Mandab meesha la leeyahay. haddaba wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga bayaan rasmi ah oo ay soo saartay oo loo gudbiyay suxufiyiinta ayay waxay ku sheegeen maanta khamiis ah in marka afhayeenka ninka la yiraahdo Zaki Aqtook uu sheegay in Ankara ay ka qayb qaadatay kulankaas. haddaba marka dawladaha hadda xaadirka ah ee ka qayb galaya shirka ayaa waxaa lagu sheegay sida ay boqortooyada Saudi Arabia sheegtay isbahaysigan dhanka badda ee difaaca waxaa hadda diyaar ah oo ciidamadoodu ka qayb qaadanayaan oo hadda howlgalaya wadamada ay ka mid ka yihiin wadanka Mareykanka iyo wadanka Yemen dhanka dawladda laga hadlaya Kuwait saldanada Oman wadanka Urdun wadanka Sudan wadanka Morocco wadanka Maldives wadanka Bangladesh iyo wadanka New Zealand marka Sacuudiga marka intaasoo wadana hadda diyaar u ah
turkiga iyo bakistan iyo xataa hadda ciidankoodii waxaasi ma joogaan intaanu marka wuxuu rabaa sacuudigu maraykan iyo asagaa hogaaminayaan waa marka dowladahan jacburka inuu xuuti kaga adkaado rabaa marka dowlado badan oo horay isbahaysiga u ogolaadaa jira laakiin qaar tabarhaynin sida Soomaaliya iyo Djibouti iyo hadda laguma soo darin laakiin markii hore listigii hore guud ahaan dowladaha aqbalay isbahaysigan ayay kamid ahaayeen laakiin hadda inta diyaarka ah wax ka win karta lana ka win karo ayaa hadda la soo bandhigay marka intaana hadda diyaar ah laakiin Turkigu shirkay ka qayb galeen wali ciidankoodii iyo waxoodii inay ku jiraan lama sheegin halkan laguma soo qaadin waaye marka shirkan marka muxuu soo kordhinayaa sacuudiga isbahaysigan uu samaynayo marka dadka fikrado kala duwan ay ka bixinayaan dadka wax falanqeynaya waxay leeyihiin wax uu soo kordhinaa male isbahaysigan sacuudiga iyo maraykan waxba kama qaadi karaan xuuti marka waxaa leeyahay inuu ka sii daro oo baabal mandab jaro ayay keeni kartaaba haddii la yiraahdo waa lala dagaalayaa marka sheekadu halkaas maray marka sheekadu marka goormee maxay ku soo beegmaysaa marka shirkan iyo hawlihiisa waxa ku soo beegmayaan nimankii xuutiga oo dardar ku socda tacis iyo laxaj iyo makha iyo magaalooyin dhan xataa maanta Xadarbuud ay nagta ka saareen meelihii ay joogeen ciidamada dowladda Sacuudiga taageero marka nimankan waxay isticmaalayaan gantaalo iyo drones casriya oo xataa Israa'iil ay wax ka qaban weysba ma kuwan ayaa wax ka qaban kara xukuumadda Yemen amay jubta lagu hayaa marka meelaha looga baqayo inay gacanta ku dhigaan waxa kamid ah miina makha meesha la macnaha dekada makha la yiraahdo 75 kilomitir u jirta baabal mandab meeshaas maalin walba waa rukuman tahay nagtay ku hayaan waxa leeyahay khatar ku jirta inay nimankan u qabsadaan ay rabaan dekada iyo dhaqaalaha iyo halkaas si baabal mandab ay ugu sii dhawaadaan hoosta u galaan qoriga aka gaaray marka waxay soo maraa meesha hadda xogaa xuutigu waa ka fog yahay nimanka kale oo Yemeniyiinta ayaa uga dhow baabal mandab marka hoosta inay ka galaan ay rabaan marka waxa leeyahay Sacuudiga isbahaysiga waxa uu ka shaqeynayo xuuti shaqadiisa ma xuuti sidii meeshan ugu dagi lahaa horeyna wuxuu sheegay cashuur inaa ka qaadaan rabaa uu leeyahay haddaba markaa tusoo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray hujuum xuuti ah weerar xuutiyiintu ay ku qaadeen ciidamada xukuumadda ee ku sugan Xadarbuud kaas ayaa sababay labo inay dhintaan 15 kalena inay ku dhaawacmaan haddaba waxaa sii kululaaday dagaalka u dhaxeeya xukuumadda Yemen iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta maalmihii la soo dhaafay haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegaan xuutigu inay isticmaaleen diyaarado drones iyagoo nagta kaga saaray meelihii saldhigyada u ahaa ciidanka xukuumadda ee deegaanka Xadarbuud maanta khamiisa waxay sheegtay xukuumadda Yemen laba kamid ah askartooda in halka lagu dilay 15 kalena ay ku dhaawacmeen markii xuutigu uu weerar ku soo qaaday halkaas marka maantaydii hore saakayna weerar kale qaadeen duhurkii weeraro hadda idila hadlayna war degdeg wuxuu leeyahay dekada makha meesha la leeyahay ayaa si fiican xuutigu ay u garaacayaan marka isku soo duub al-umuum waxa socda gacan ku haynta baabal mandab Sacuudi iyo waxa ku loolamaya iyo Iiraan marka xaqiiqada laga hadlay nimankan xuutiga waa Iiraan Sacuudiga Iiraan baabal mandab ay ku dagaalamayeen cidii gacanta ku qaban lahayd hadda waxa ku awoodran Iiraan sababtoo Sacuudiga ma mari karo Sacuudiga hadduu xanaaqo uu yiraahdo anigana waa aarsana maxaa aarsana xuuti markaba ma qabe maxaa adiga nagta ka saaray xuuti jabhadu ay maraakiib jidaal qaada iyo alaab meesha u martay ma bal habaasay marka Sacuudiga marka halkaas xaaladdu waa ku xuntaa la leeyahay waaye qaybta marka ugu dambaysa barnaamijkeena labaad maanta aynu soo qaadanayno waxaynu ka hadlaynaa xarunta la yiraahdo xarunta maqar khaatimul anbiyaa xarunta khaatimul anbiyaa la yiraahdo islaamka u qaabilsan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa waxay soo saartay war maalmahan oo dhan Mareykanku waxay leeyihiin meesha baabalkii Hormuz waa caadi anaga controlna waa la mari karaa war waxay leeyihiin nimanka ayay ajarin
markabaan annaga naga amar qaadan meesha ma isku mari karo ogaada maraykan waa beenaale wax ka jira male warkiisa leeyihiin haddaba markaan idintusoo wararkii ugu dambeeyay aljaziira qoraysa waxay leedahay iiraan war ay soo saartay hadda waxay sheegtay wax mari kara oo aamin ah ma jiro markab ah baabal mandab meesha la yiraahdo hormus wax mari kara ma jiraan ilaa ay idam ka haystaan oo ogolaansho ka haystaan iiraan afhayeenka ayaa hadlay goor dhaweyd xarunta la yiraahdo khaatimul anbiyaa ee dalka iiraan wuxuu sheegay in markab aan halkaa isan isku mari karin uusan aamin ahayn hormus ilaa ay iiraan u ogolaato sheegashooyinka Washington waa wax kama jiraan wuxuuna sheegay inaanay jirin wax Mareykanka uu ka qaban karo maraakiibta halka maraysa Iiraanna ay maamusho haddaba waxay ku tilmaantay Iiraan waxa uu Mareykanku samaynayo inay tahay been cad oo lagu qaldayo maraakiibta waxayna digniin u jeedisay maraakiibta dhanka kale waxay sheegeen Iiraaniyiintu inay jawaab cad ka bixin doonaan cid kasta oo ku soo xadgudubta ciidamada Iiraan oo markaa isku dayda inay dhibaatayso ay soo weerarto marka xaruntan waxa la yiraahdaa xarunta khaatimul anbiyaa waxay u qaabilsan tahay dhanka iclaamka iyo propaganda la yiraahdaa waxa waaye propagandada waxa waaye dadka hadalka markii la soo tuuro hadal kale inaad ku jawaabtid wararka oo meelaha socdo inaad tiraa waa been wax kama jiraan waa xafiis dhano maqarul khaatimul anbiyaa la yiraahdaa xarunta khaatimul anbiyaa waxay hoos tagtaa nimankan la yiraahdo ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan wax kale ma qaabilsan waxay qaabilsan yihiin dhanka warkan iyo dagaal markuu socdo waa meesha ninka bar walba saxaafada la hadlo uu ka hadlo xaruntaas la yiraahdaa haddaba marka waa arki doonaa baabal mandab oo ay isku haystaan Sacuudi iyo Iiraan iyo halkan oo Iiraan iyo Mareykan hormus isku haystaan wixii soo kordha waa arki doonaa inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo